السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم. qisadani waa dhab waa xaqiiq laakiin waa cabsi waxay ku dhacday wiil la dhaho cali sanadku markuu ahaa 2012 cali xilligan wuxuu jiray 17 jir marka sanad ku dhacayso cali wuxuu kasoo jeedaa qoys maalqabeen ah adeeradiis eedooyinkiis lacag bay la dhimanayaan guryo waaweyn bay degan laakiin waxaa jiray adeeradiis mid kamid ah oo la yidhaha xasan oon wax la haysanin guryada doqoshu iska degan yahay life simple ku nool ah cali wuxuu u jeclaa adeerooyinkiis marka adeerkaa faqiirka wax ba haysanin kaasuu mar walba gurigiisa aadi jiray adeer asadna wuxuu isqabay islaan la dhaho saara marka wiilkayga markuu imanaya cunto macaan u karisaa alaabta carruurta ay ku ciyaaraan u diyaarisaa saarana wiilkaayda aad bay u jeclayd sababtaa ilmaba mayna haysaninba wiilkeedoo kale u arkaysa cali heer wuxuu gaaray hooyadiis uu ka jeclaado eedadii saara oo ah islaanta adeerkiisa asad reerku isku iman jireen marka shir baa la qabsan jiray sanadkiiba hal mar baa family gathering yani cashaa la karsanaya waa la sheekaysanaya adeer asad keligiisu yimaada islaantiisa lama yimaado laakiin adeerada kale oo dhan nin walba islaantiisu soo kaxaystaa eedooyinkana waxay soo kaxaystaan odayaashoodii cali marka damba muuse iskaga dhigi jiray sababta waagaa ilmo yar waa 12 jir ah 13 jir 14 jir dhowr sana kasoo wareegtay mar walba adeer asad keligiisu iman jiray shirki cali maaligii dambe uu isweydiiyey way adeeradan kale ay islaamahooda ula imanayaan usan adeer asad xaaskiisa ula imaanin dhowr sana markii kasoo wareegtay oo cali 17 jir soo gaaray baa habeen la go'aansaday in cashada iskugu yimaado sida caadada ahayd adeer asad keligiisu albaabka kasoo galay intuusan fadhiisanin ba cali baa yidhi adeer islaantaadii aawo ama xaaskaagii aawo adeer asad waa naxay indho u taagay cali soo ag fadhiistay adeeradii kalena dan iskagama dhigin intuu ugu sheegay wuxuuna ku yidhi adeeradaada kale ma oga inaan islaam qabo marka beriyeyma oo anaa kuu sharaxaya adeeradii kalena waxayna dan iskaga dhiginba ninkan islaam maynan ku oginba subaxii dambe cali waa soo baxay guriga adeerkiisa asad u yimid wuxuu yidhi adeer xaali sheekada tiri waa kuu sharaxay ay sharax wuxuu yidhi adeer edhegeyso eedada saara shirka way joogtay maad arkaynin adeerada kalena ma ogaan inaan qabo sababtoo ah eedada saara waa islaan jin ah baan qabaa wiilkii yaraa cali ahaa waa naxay waa gariiray waa dhididay cabsi darteed wuxuu ku hadlo garan waayo laakiin adeerkiisa asad kama waalida uu dejiyo adeer isdaji buu yidhi wiilkii yaraa wuxuu yidhi adeer su-aal markuu weydiiyey hadda eeda saara aaway adeer asad wuxuu ku jawaabay waynala joogtaa wayna maqlaysaa wayna lacag fadhidaa laakiin adiguna hadda ma arki kartid sabab buu yidhi wuxuu yidhi adigu maadaama baratay ood wejigeeda taqaano haddana ogaatay inay jin tahay way iska kaa qarinaysaa dib dambana ma arki doonta laakiin anigu waan arkaa shirka habeen walbana way isoo raaci jirtay laakiin lama arki jirin anuun ba arki jiray wiilkii yaraa naxdin buu la sii waxshay maalinkaasa ugu dambaysa horta guriga adeerkiisuu tago dib dambe ugumuusan noqonin aad bay ugu maxsantiin daawashadiina anaga ilaawin inaad folowna siisaan intaan maanta gudaheeda waxaan rajaynaynaa insha allah inaan ugu yaraan 3,000 oo followers gaarno